maxaad ka taqaanaa maalinka carafo? maalinka carafo waa maalin aad u weyn, waa maalin aad u qiimo badan. qiimihiisa iyo fadligiisa waxaa ku tusinaya arrimo dhowra. kow, waa maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhammaystiray diinta, sida xadiidka cumar ibnu alkhataab uu tilmaamayo. cumar waxa u yimi nin yahuudiya, markaasaa wuxuu ku yidhi: yaa amiira almu'miniin, aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha low calaynaa macshara alyahuudi nasalat latakhadnaa dalika alyowm ciida. cumarow, aayad kitaabkiinna ka midood akhrinaysaan, haddii annaga oo yuhuuda ay nagu soo degi lahayd, waxaannu ka dhigan lahayn maalinkay soo degtay ciid baannu ka dhigan lahay. cumar ninkii wuxuu weydiiyey: ayu aayatin, aayaddee weeyaan aayaddaas? markaasaa wuxuu yidhi: alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. waa aayadda ah maanta ayaan diintiinnii idiin dhammaystiray. alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii, korkiinnana nicmadayda aan ku taam yeelay. wa radiitu lakum alislaama diina, diinta islaamkana aan idinka raali noqday diin inaad ka dhigataan iyo manhaj oo aad ku dhaqantaan. waa aayaddaasuu yidhi. markaasaa cumar wuxuu ugu jawaabay: waan garanayaa aayaddaas booskii ay ku soo degtay iyo wakhtigay soo degtay iyo halkii nebigu uu taagnaa markay soo degaysay. maalin carafay ahayd oo maalin jumco ah, banka carafa isagoo nebigu uu taagan yahay ayaa aayaddaasina ay soo degtay. sidaa darteed xadiidku wuxuu tilmaamayaa maalinka carafa waa maalin ciideed weeyaan. bal sida xadiidka cuqbata bnu caamir uu tilmaamayo, nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: yowmu carafa wa yowmu اnnaxri wa ayaamu اtashriiq ciidunaa ahla alislaam. maalinka carafo iyo maalinka dhundhowga oo maalinka tobnaad ah waa maalinka ciidka, iyo saddexda cisho ee ka dambeeya 11, 12, 13 oo ayaamu tashriiq loo yaqaano. shantaa maalmood waa ciiddayada buu yidhi nebigu, haddaan nahay muslimiinta iyo dadka islaamka u nisbo sheeganaya. waxaa ka mida walaalayaal fadaa'isha maalinka carafa oo qodobka labaad noqonaya, sida xadiidka caaisha uu tilmaamayo. maalinka carafo waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala dad badan uu naarta ka xoraynayo. nebigu wuxuu leeyahay: maa min yowmin akthara min an yuctiqa allaahu fiihi cabdan min annaari min yowmi carafa. ma jiro maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommaha uu uga xorayn badan yahay naarta maalinka carafa. yacni maalinka carafa waa maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiis uu ugu xoraynta badan yahay ee uu naarta ka xoraynayo. qodobka saddexaad ee ku tusinaya maalinka carafa qiimihiisa waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo degayo ila samaa'i addunya, sida xadiidka caaisha uu tilmaamayo: wa innahu layadnu uma yubaahii bihim almalaa'ika. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa soo dhowaanayaa addoommaha banka carafa taagan buuna ugu faanaya malaa'igtiisa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu faanaya. fayaquulu maa araada haa'ulaa, wuxuu odhanayaa kuwaasi maxay soo dooneen, maxay halkan u yimaadeen, maxay isugu soo aruureen, maxay dharkoodii intay u soo dhigeen labada go' u soo qaateen, maxay u dullaysan yihiin, yay baryayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ugu faanaya. haddii aynu garannay walaalayaal maalinka iyo qiimihiisa iyo fadligiisa, waxay isweydiin le maxaynu kaga faa'iidaysannaa? waxyaabaha lagaga faa'iidaysanaya waxaa ka mid a maalinkaa in la soomo. soonka maalinkaa la soomaana fadli badan baa ku sugan. xadiidka nebigu wuxuu tilmaamayaa: siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allaahi an yukafira asanata alatii qablah waasanata alatii bacdah. maalinkaa soomka la soomayo waxaa lagu dhaafayaa sanadkii tegey dembigii kaa dhacay iyo sanadka soo socda dembiga kaa dhacaya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga tirtiraya oo lagugu dhaafaya. waxyaabaha lagaga faa'iidaysanaya waxaa ka mida walaalayaal inaynu ducada badinno, ducada lagu dadaalo. nebigu wuxuu tilmaamayaa: khayru ducaa'i ducaa'u yowmi carafa. duco waxaa u khayr badan ducada maalinka carafa la ducaysto. ducada inaynu badinno oo ilaahay wanaag weydiisanna iyo khayr ayaa waxa weeyaan loo baahan yahay maalinkaas. sidoo kale dikriga iyo xuska iyo qur'aan akhriska iyo alla ka cabsiga inaynu xoojinno aad iyo aad bay muhiim u tahay.